waxaa ka mid ah sheekooyinka loo tiriyo Juxa inuu maalmaha ka mid doonay inuu ka ganacsado biraha waxaana uu soo iibsaday biro aad u badan waxaana uu dhiibtay mid ka mid ah ganacsatadii magaalada kula noolayd oo uu u sheegay inuu hayo inta uu qiimaha birtu kacayo waxoogaa kadibna waxa uu maqlay inay qaaliyoobeen birihii waxaana uu u tagay ganacsadihii oo waxa uu weydiiyey birihii laakiinse ganacsadihii uu ku booday waxaanu ku yidhi birahaagii jiir baa cunay dib ayuu u istaagay Juxa oo uu yaabay intaanu hadlin intuu ganacsadihii qabtay ayuu bannaanka ku tuuray gurigiisii ayuu iska tegay Juxa isagoo aad u cadhaysan oo ka fikiraya siduu u soo ceshan lahaa birihiisii isagoo aan maxkamadda tegin dhowr maalmood kadib waxa uu arkay Juxa isagoo waddada iska maraya wiil yar oo 5 jir ah oo uu dhalay ganacsadihii kadibna uu qaatay oo gurigiisu geystay aroornimadii maalinkii dambe markuu Juxa saa uga soo baxay gurigiisii waxa uu arkay ganacsadihii oo ku soo socda waana uu yimid oo waxa uu weydiiyey inankiisii isagoo baryootamaya waxaana uu Juxa ugu jawaabay aniga oo suuqa jooga waxaan maqlay qaylo markaan eegay meesha ka soo baxaysana waxaan arkay shimbiro qaatay inankaagii oo sii sita ganacsadihii ayaa ku jawaabay isagoo naxsan oo shimbiruhu miyay qaadi karaan qof dhan Juxa ku jawaabay haa waddanka uu jiirkiisu awood u leeyahay inuu cuno biraha shimbirihiisuna way qaadan karaan carruurta uu qoslay ganacsadihii waanu fahmay wuxuu u jeedo Juxa markaasuu yidhi si ilmahayga yar birahaagiina kaale soo qaado haddii aad haysayso wararka iyo dhacdooyinka adduunka waxaanu idiin furnay channel aan idinku soo gudbin doono intaasba ee nala soco oo nagu soo biir waxaana uu saaran yahay brofaylkeena ku dhufo soona follow garee si wax walba oo cusub oo aan soo gelina kuugu soo dhaco